wafdi ka socda midowga Yurub oo hogaaminaya safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga ayaa xarunta wasaaradda amniga kula kulmay wasiirka wasaaradda amniga iyo DDRT ee Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan oo ay ka wada hadleen taageerada midowga Yurub uu siiyo Soomaaliya ee dhanka ammaanka. wasiirka wasaaradda amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan oo warbaahinta la hadlay kadib kulanka wafdiga midowga Yurub ayaa sheegay inay kala hadleen sidii loo sii wadi lahaa taageerada dhanka ammaanka ah ee midowga Yurub uu siiyo Puntland. alxamdulillah waxaanu joognaa xaruntii wasaaradda amniga iyo DDRta Puntland ee magaalada Garowe waxaana saaka nagu soo booqday xarunta oo aanu kulan waqti dheer qaatay aan wada qaadanay wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay safiirka EU wakiilka uga ah Soomaaliya waxaanu ka wada hadalnay arrimo badan oo ku saabsan amniga Puntland iyo sidii loo adkeyn lahaa amniga Puntland waxa ka wada warhaysaan EU in ay barnaamij aad u ballaaran oo la yiraahdo Joint Police Program ay la wado dawladda federaalka iyo dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka oo ay Puntland ka mid tahay waxa hore u jiray barnaamijyo saas oo kale ay uga qayb qaadatay adkeynta amniga iyo deganaanshaha hadeerna waxaanu waqti dheer aanu ka wada hadalnay sidii loo sii wadi lahaa barnaamijyadii EU ay hore uga waday Puntland kuwa cusubna looga bilaabi lahaa barnaamijkaasna wuxuu tusaale fiican u yahay waxqabadka iyo ay Soomaaliya gaar ahaan Puntland ay ka wado aad baan uga mahadcelinayaa wafdiga ballaaran ee ambassadorka hogaaminayay mar labaad iyo mar saddexaadna aad baan idinku mahadcelinaynaa bahda meediyaha iyo dhammaan intii qaybta ka ahayd kulankan inuu qabsoomo aad baan u mahadsantihiin. Axmed Maxamed Nadiif warbaahinta Daljir Garowe.